السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن AK Production وإن سلامي وأصحابكين AK isku soo noqosho waxaan u xiiso leh saaxiib yaal ku soo dhawaada channelkeeni horta maalmahan muuqaalo idinma soo gelinin saaxiib yaal ka raali ahaad waxa waaye mashquul iska jira ma fahanteen muuqaalkan waa muuqaaladii hore labadii muuqaal ka horeysay ayuu la socdaa marka muuqaalkan maana soo gelinin laakiin labadii hore waan soo geliyay saaxiib yaal marka muuqaalkan qaybtan ee wadada Maka Al-Mukarrama muuqaalkii ugu dambeeyay ee aan ka soo duubo waaye marka quruxdeedana waa u jeedin saaxiib yaal iyo sida loo kala socdo marka asxaabta igu xiran waxaan leeyahay soo dhawaada dhowr bari oo muuqaal soo dhigin waa idin ka raali gelinayaa maadaama mashquul iyo waxba aan ku mashquulsanaa waxbarasho iyo shaqo ayaan ku mashquulsanaa saaxiib yaal fahanteen marka aad iyo aad ugu xumahay inaan waxba soo dhigin taasina macnaha marka halka wadadan hadii aan ka hadlo dabaqan waxa la dhahaa hadda aan kaamirada ku qabanayo City Tower ayaa la dhahaa saaxiib yaal wadada Maka Al-Mukarrama ayuu ku yaalaa asxaabteyda waxaan leeyahay saaxiib yaal soo dhawaada laamiga waa u jeedaan sida nadiif u yahay xilli galaba muuqaalkan duubay dadka iyo asxaabta iyo wadada sida u kala kacsan tahay waa u jeedin saaxiib yaal dadka muuqaalada xiiseeya ee wadamada dibadda jooga ama wadanka ka maqan iyo hadii aad wadanka joogtidba muuqaalkan kulay adiga ayaa iskala fahanteen insha Allah waxaan rajeynayaa inaad channelka like saartaan subscribe saartaan sidoo kale fiidiyowyadana aad la socotaan hadii fiidiyogan fiidiyow kugu horeeyay tahay waxaa jira fiidiyoyaal kale oo aan channelka soo galiyay soo marka fiidiyoyaasha kale inaad soo daawato isku day qaybtan waa qaybta 12aad sidoo kalena wadada ugu nadiifsan aan dhihi karaa fahanteen wadooyinka sidoo kale wadada oo Soddonka inaan soo duubaan raba ayadana iyo wadadan kale ee Binti October kole dadka hore xamar waa yaqaanaan mootadan xamar ay ku soo qorato marka sida u jeedin laamiga waa clean fahanteen very clean waa fahanteen sababta oo clean u yahay waxa weeyaan waa meeshii oo wadada oo fiyaalaha ah inaha waa indhaha waa caasimadda fahanteen marka aad iyo aad looga taxadiraa badanaa laamiyada kale waxa moodaa laamiga inuu ka nadiifsan yahay inaha laga yaabaa laami kale inaad ku aragtid ama carro oo kala soo gashay laakiin laamiga sidii u jeedin saaxiib yaal macnaha waa heer sare weeyaan u jeedin wadooyinka ganacsiyada meeshan koob shay hadaa ka cabto waa $5 waa fahanteen koobka shay $5 waa meeshan wala asxaabta ka cabtina way taqaanaan fahanteen hadaa wali ka cabin waa koob shay $5 meel laamiga laga gadaa fahanteen waxaad meeshan ku taala maalin galnay waxaan isdheynay koob shay $1 iyo $1 iyo waxaas camal ku gata macnaha sida Saybiyaana iyo dhulkaas oo kale marka maqaayada markaan galnay oo shaahi iyo wixii iska cunay warqada markana loo keenay $5 koob shaah bas $4 aad ma qaxas aad marka ana yab $4 koob shaah maalintan iyo naga Mareykanka ma joogna Soomaaliya joognaa marka u jeedin asxaabta laamiga soo kale inuu u jeedin marka maqaayadaas laamiga ka gadayaan fahanteen shaah ma waxa laga gadaa waa laamiga iyo sida oo meesha clean u tahay halkan waa meel aad iyo aad u qurux badan saaxiib yaal mootooyinka shaqaysanaya u jeedin marka sheekadaas aan soo xasuustay saaxiib yaal hadii meesha aad shaah ka gadanaysid ama u soo imaanaysid waa inaad ku xisaabtantaa fahanteen lacag fiican inaad wadatid hadii laakiin $1 iyo $1 la soo ordid waxa waaye adil waa fahanteen maqaayadaas maalin hore muuqaal oo dhinaca kale ayaa kaga soo duubay halkan saaxiib yaal waa meesha ugu quruxda badan sidoo kalena meeshan waxa la Xayaat Market sidoo kalena meeshan waxay ku qurux badan tahay habeenkii in la duubo habeen ay soo duubo hadaa soo codsataan waa idin soo duuba hadaa soo codsataan waaye inay habeen meesha muuqaal ka soo sameeyo hadda leerarka yararka ifaya u jeedin dhammaantooda dhowti waxay noqonayaan fahanteen waxay ifinayaan macni kala ra'ay shidayaan kala nooc fahanteen laakiin dabaqana ma sha Allah waa asagana dabaq weyn waa inkastoo oo maleynaa inuu xoogaa dhisan yahay qaab dhismihiisa macnaha qaabka dhismihiisa aad loo weyneeyay fahanteen ganacsiyo weyn ku yaala oo maleynaa saa u jeedin aad loo weyneeyay marka saaxiib yaal waxa weeyaan wadanka waa iska dhismaa tartiib u dhismaa wadanka fahanteen wax walbana waxa waaye marka idinkana waxaan rajeynayaa commentiyada ay soo qortaan in asxaabi commentiyada qaar oo cabsida in ay ga dhaaftaan
oo commentiyo oo wanaag u badan soo qora asxaabi commentiyo qaar oo arrimo siyaasadeed iyo waxaan shaqo ku lahayn iyo waxyaabahaas ka soo hadlinayo indhaha caalamka ay ugu soo jeedin ma fahanteen marka idinka waxyaabo yar yar oo iska fudud ka soo hadla cabsi ay gelin ma fahanteen marka wixii Soomaaliya dhan ka dhaxeeyo maaragtay waxyaabahaas oo kale inaa macnaha commentiga ogaada shaar ma caloosha ku haystan iyo wixii idinkii oo idinka dhaxeeya idinka leewaan marka saaxiib yaal wadada hadda oo jeedin lambar 4 ku sii dhowna BL-da shaqeynaya meeshaan waxaa ku taala maqaayadaas oo caan ah saaxiib yaal oo labada ka saameyn fahanteen maqaayad kor ku taala jaranjarada loo fuulayo abaya maqaayada shidanta saaxiib yaal dooro waxay gadaan caadi ahayn fahanteen marka meeshaan sida u jeedin waa dabaqaad hadda la dhisay dhow waxaa jira muuqaal aan hadda ka hor ano iska falaaday maaragtay oo hadda ka hor aan mooto aan u saarnaa muuqaal yar mobilkii asaga duubay shucaaba iska aaday laakiin wuxuu ahaa muuqaal oo dabaqana ka duubay waa haya muuqaalkaas insha Allah asana before and after aan ka soo sameynaa hadda soo dalbataan adinka dalabkiina ku xirantaa wax walba fahanteen marka adinka dalabkiina ayay wax walba ku xiran tahay sidoo kalena dhismaan waa dhismooyin ma fahanteen hadda meeshaan waxa la lambar 4 waa taqaanaan muuqaal dhinaca kale ka soo duubay maalintii hore maantana dhinaca kale ka soo duubay dabaqana marka asxaabta aan rabaa inay ku aadiyo si ay u aragtaan